wiilasha dhalinta yar oo halkan jooga oo u labisan iyaguna inay ka soo baxaan tababar waxaan idin leeyahay waxaad ku soo aadeen waqti wanaagsan waqti ummadda Soomaaliyeed ay soo jeesatay ay kala garatay saxda iyo khaladka la bilaabay in la ilaaliyo xoolaha ummadda Soomaaliyeed la bilaabay in la dagaalamo musuqmaasuqa la gartay dawladnimada Soomaaliyeed inay ku taagan tahay dariiqa saxda ah idinkana la idin soo xulay inaad noqotiin ilaaliyaasha dawladnimada ummadda Soomaaliyeed halkan caawa waxaa ka muuqda in dad Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen gabdho Soomaaliyeed oo noo sheegay taliyuhu inay ka mid yihiin hoggaanka booliska gabadhii Soomaaliyeed ee ugu sarreysay booliska oo ah taliye ku xigeen halkan waxaa ka muuqda dhalinyaro naftooda soo qadintay oo u diyaara in tababar loo dhammaystiro waxaa jooga wiilal Soomaaliyeed oo nooga yimid jigjiga si ay noola qaybsadaan farxadda waxaa jooga kuwii uu ugu weyn yahay Generaal Kadiye waa kuwa halkan jooga kii ugu horeeyay oo booliska qortay xataa ka hor qortay taliyaha welina u taagan qarannimada ummadda Soomaaliyeed waxaasoo dhan waxay muujinayaan iftiin dalka Soomaaliyeed waxa uu soo maray dhib badan dadkiisu waa kuwa dunida ugu adkaysiga badan waa kuwa ugu noolaanshaha adag meesha ugu dhibka badan sababtoo waxay soo dulqaateen waxaan dal kale iyo dad kale u dulqaadan lahayn maanta laakiin waxaan soo gaarnay markii runta la isu sheegi lahaa kuwa runta sheegi lahaayna waa dhalinyarada horteeda taagan maanta waxaan soo gaarnay markii aan dhihi lahayn ma aqbalayna isbaaro dambe waqtigii isbaarada waa la soo dhaafay qorigii qalin baan ku bedelnay qabiilkii iyo qabyaaladina qaranniman ku bedelnay qoorsigii qab baan ku bedelnay